bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal daawadayaal kusoo dhawaada Taha Inspires iyo asbuucan haddii ilaahay yiraahdo maanta waxaa marti inoo ah Cabdalla Cabsalaan Yuusuf oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wadankan Turkiga wax ku bartay darajada masterka ku dhameeyay maantana xilligan la shaqeeyo yani shirkadda lagu magacaabo Midsan oo bixiso adeegyo waxbarasho iyo la talin dhanka ganacsiga ah Cabdalla Cabsalaan Yuusuf soo dhawow Cabdalla maanta wuxuu inala wadaagi doonaa talooyin iyo macluumaad ku aadan dhanka iqaamada si ay uga faa'iideystaan dad Soomaaliyeed ay macluumaadkaas u baahan karaan ama dalka ku nool ama dalka dibadiisa ku nool Cabdalla soo dhawow magacaaga iyo adigoo ku bilaabaysa soo dhawow aad baan mahadsan tahay mudane Cabdisamad iyo Taha Inspires run ahaantii waxaan aad u bogaadinayaa barnaamijka Taha Inspires aad hawsheeda waday in muddo ah waxaan ka mid ahay dadka ku xiran barnaamijkaas oo barnaamijyo badan oo aad talooyin aad bixiseen iyo waxyaabo ku saabsan nolosha Turkiga iyo aad horey u soo gudbiseen aad baan kugu mahadcelinayaa insha Allah wixii Ilaahay iga garansiiyo waxaan rajaynayaa inaan ka yiraahdo shuruucda deganaanshaha wadanka Turkiga oo iqaamada ay ugu horeyso waa mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan ka hadli doonaa haddii alla idmo aan rajaynayaa wixii macluumaad Ilaahay iga garansiiyo inaan idin wadaago barnaamijka mowduuc ku saabsan deganaanshaha dalka Turkiga shuruucda deganaanshaha marka koowaad waxaan ka bilaabayaa insha Allah taala noocyada deganaanshaha wadanka Turkiga lagu joogo midka koowaad ee ardayda dadkii ugu horeeyay wadankan ay ku yimaadeen oo Soomaalidu ay ku barteen wadanka Turkiga wuxuu ahaa ardaynimo maadaama Turkiga xilli ugu horeysay dadkii ina baray ama ugu horeeyay Turkiga yimid ay ahaayeen arday jaamacadeed iyo arday secondary iqaamada ardaynimo waa midda ugu horeysa aan maanta insha Allah xooga saari doono nooca labaad ee iqaamo lagu qaato wadanka lagu deganaado waxa weeye midda dalxiiska ay yiraahdaan Soomaalidu laakiin magaceeda saxda la yiraahdo short term iqaamada noocaasa oo ah iqaamo xadidan waqti gaaban leh midda saddexaad waxa weeye iqaamo caafimaad ayadana waxa weeye dadka u soo galay qaab inay wadankan isku daweeyaan istaalada Turkiga baa qaata midda u dambaysa insha Allah taala ayadana wax yaraan ka dhihi doono inkastoo horey barnaamij faahfaahsan looga sheegay waxa weeye midda qaxootinimada ama magangelyo doonka ama bini'aadantinimada dad waxaa jira wadankan Turkiga ay ku jooga qaab magangelyo doona qaarna qaxooti loo aqoonsaday barnaamijkaas asagoo faahfaahsan waxaad ka heli kartaan Midsan xalaqada kor laga jeediyay haddaan soo laabto barnaamijka tafaasiishiisa gudaha ah ardayda wadanka Turkiga yimaada waxay u qaybsamaan laba qaybood mid waxa way ardayda minxada ku timaada oo scholarship wadankan Turkiga dawladdu ay keento ardayda labaadna waxa way ardayda iskood u yimaada oo jaamacada bareefada ama jaamacada dawladda iskood ayagu fiigooda ayagu iska bixinaya dalkan yimaada ardayda minxada wadankan ku yimaadahi waxay wataan ayagu normally markay imaanayaan ba visa ardaynimo oo education visa ay ku soo galaan kadib muddo 3 beri gudaheeda ay waxay ku dalbadaan iqaamada wadankan sidaas waxay ku helaan iqaamadii ayagoo jaamacadooda markaas u maraya oo systemka jaamacadooda ay siinayso warqadan la yiraahdo Orange Belgesi ama warqada ardaynimada cadaynaysa qofkan uu jaamacada wadanka dhigto ardayda nooca labaad ee ayagu lacagtooda ku yimaada laba isugu jiraan qaybna waxay ku yimaadaan arday visa waxbarasho soo hela oo marka hore admission wadankan looga soo saaray jaamacadeed ayuu ka helay oo markaas ayagu ardaydii hore u dhigma kuwa labaad waxa weeye arday ama family meeshan soo degay marka horeba ama arday asagoo iskiis u yimid qof iskiis u yimid oo visa dalxiis ku soo galay laakiin asagoo wadanka jooga go'aansaday inuu arday noqdo oo jaamacad haraysto ama jaamacad galo ardayda noocaas oo kala dambe ayagu waxay sameynayaan laba ay u sii qaybsamaan laftigoodu kuwa iqaamay haystaan oo iqaamad marka hore iqaamada dalxiiska Soomaalidu ay yiraahdaan bay qaateen hadhow bay jaamacad galeen kadib bay iqaamadii hore ka guurayaan waxay u guurayaan iqaamada cusub ee ardaynimada taas waxa la yiraahdaa gejish ama wareegid oo qofku inuu ka wareego iqaamo nooc uu haystay oo uu wareego iqaamo nooc kala oo tii hore ka bedelan dadka qaarna waxay sameeyaan markay yimaadeen ba ayadoon VC wali ka dhicin waqtigiisii loogu talagalay wadanka inuu joogo bay jaamacad xaraystaan jaamacadii bay helaan kadib waxay sameeyaan toos bay waxay u dalbadaan iqaamo ardaynimo ayadana waa la sameyn karaa wax dhiba kama jiro
laakiin anigu waxaan ku talin lahaa qofkii raba inuu waxbarasho wadankan ku joogo ama ardaynimo ku joogo marka horeba inuu jaamacad soo xareysto oo sidaas ku ardaynimo ku yimaado status ardaynimo ku yimaado sidaasna statuskii ardaynimada uu kusii wato oo iqaam ahaan ugu bedesho taas haddaan ka gudbo waxaa weeye midda ku xigta waxaa weeye tan dalxiiska ama soomaalida ee wadankan tourist ahaan u yimaada oo hadhowna go'aansada inay wadanka sii deganaadaan sida caadiga ah oo la ogol yahay oo sharciyan ah waxa weeye qofka dalxiiska ahi waa qof yiri wadankan waxaan soo joogayaa ugu badnaan 3 bilood kadibna raba inuu ka laabto laakiin waxaan moodaa anaga Soomaalideen inaan hoogaa arintaas wax badan mataqaan aan ku qasnay oo qofka dalxiiska wadan ku yimaanaya wuxuu u maleeyaa inuu mataqaana wadanka asaasiyan wax u yimid ba ay tahay inuu hadhow iqaamo ka samaysto deganaado in dalxiis wadanka loo yimaado macnaheedu waxa weeye in wadanka soo gashid hawlihii dalxiis ama shaqooyinka aad rabteen aad qabsatid oo wadanka isaga baxdid laakiin lacalla haddii ay dhacdo qofka inuu wadanka sii deganaanayo oo baahi u gasho inuu wadanka ku sii deganaado wuxuu tamaysan karaa sharci ku joogida wadamada kale badankood waxay sameeyaan qof markuu dalxiis wadan ku yimaado oo fiisi xilliga loogu talagalay mesela 9 bari bay ahayd ama 30 bari bay ahayd uu hawshii uu rabay ama dalxiiska uu rabay ku dhameysan waayo waxay codsadaan in viisaha extension loogu sameeyo loo dheereeyo taasna waa wax la sameyn karo laakiin Soomaalida badan deegaan bay noqdaan marka that's why ay u dalbadaan iqaamo taas waxaan hadalka ugu soo daray meesha waxa weeyaan qof waxa arkaysa wadanka dalxiis ku yimid hadhow iqaamo dalbad iqaamada hadii loo diido mataqaana caroonayo oo dhahaya way la igu diiday sida caadiga ah ba adiga marka dalxiisa tahay xaq uma leeyahay wadanka inaad joogtid waa wax macnaheedu waxay ahayd adiga temporarily muddo go'an inaad wadanka joogtid kadibna ka tagtid bay ahayd shardigaagu marka hadii iqaamo inta dalbatid adoo dalxiis wadan ku yimid iqaamo dalbatid oo lagu diido cidna ha caroonin waxa weey adiga mataqaana marka hore waxa ku socotay barnaamij temporary ah oo wadanka inaad soo joogto ayaana kadibna isaga tagtid ahaa midda ganacsigu tan dalxiiska waxay uga duwan tahay kaliya qofkaani markuu iqaamada xareysanayo shuruudda iqaamada markuu xareysanayo laga rabaa waxay kamid tahay shirkadii ganacsi ahaan u keentay oo qofkan soo casuuntay baa waxa laga rabaa inay warqad siiso qofkan sponsor inay ka tahay inuu qofkan ayaga la joogo macluumaad noocaas oo kala warqadaasna waxa weeye hadii qofku shirkad sax ah ku socday si fudud buu heli karaa laakiin qofkii aan marka hore ku soconin wax sax ah oo kaliya wadanka soo galid kaliya ka ahayd waxa laga yaabaa hawshaas inay ku yar adkaato tan ku soo xigta ee deganaanshaha wadanka lagu joogi karo waxa kamid ah ayna caafimaadka asagu waa laftigiisu waa temporary waa qofka intaan ka caafimaadayo qofkan intuu ka caafimaadayo ayuu xaq wuxuu leeyahay inuu wadanka joogo ayadana waxa weeyaan isbitaalka qofku markaas uu la xiriiray oo lagu daweynayo inuu ka soo qaato warqad cadeynaysa inta xanuunkiis ku daweysmayo inta looga baahan yahay wadanka sii joogo warqad cadeynaysa taasina waxay sameynaysaa in mataqaana lagu siiyo caafimaadkii midda kale u dabaysa waxa weeyaan aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo deganaanshaha qaabka qaxootinimada ama bini'aadantinimada ama magangelyadoonka barnaamijkaas bariga hore waxaa sameyn jirtay UNHCR baa dadka qaban jirtay faylashooda ama codsigooda qaban jirtay qaxootinimada inuu qofku qaxooti noqdo rabo laakiin xilliyada u dambeeyay sanadii u dambeeyay waxa hawshaas la wareegtay dawladda Turkiga waaxda socdaalka dawladda Turkiga ee loo yaqaan Göç İdaresi oo hoos tagta wasaaradda arrimaha gudaha waxay sameeyeen marka ayaguna laba nooc bay leeyihiin qofka marka uu horeyso oo isdiiwaan geliyo magangelyadoonka yahay wuxuu sameeyaa waxa la siinayaa muddo kaar sheegay qofka inuu magangelyadoon yahay ilaa faylkiisa uu ka cadaanayo oo qaxooti rasmi ah looga aqoonsanayo ama qaxootinimadiisa laga diidayo codsigiisa laga diidayo oo marka la dhahayo raali ah oo anaga qaxooti kuma aqoonsan karno wadanka ku laabo marka qofka marka uu horeysa ee uu dalbado kaarka la siiyaahi waa kaar u ogolaanaya wadanka sii joogo ilaa ay jawaab uga soo baxayso ama uu qaxooti ka noqonayo ama looga diidayo qofka ayaan markuu joogo oo interview laga qaado oo mataqaana dawladda wadanka Turkiga haday u aqoonto qofka inuu qaxooti rasmi yahay kadib waxa la siinayaa kaarkiisii oo kale laakiin statuskii uu isbedelayo oo qofkan loo aqoonsanayo qof wadanka Turkiga qaxooti ahaan ku jooga waxyaabo waxaa jira iqaamooyinka aysan ka maarmin iqaamada ardayga iyo iqaamada ganacsiga iyo iqaamada maxaa la yiraahdaa caafimaadku aysan ka maarmin oo ah caymis caafimaad
qofka waddankan raba inuu deganaado waxaa laazim inuu samaysto insurance, health insurance samaysto. health insurance-gaas laba nooc u sii qaybsamaa. midna waa private oo waxaa qaadan kara dadka oo dhan baa qaadan kara. midna waa midka dowladda oo midka guud la yiraahdo. asagana waxaa badanaa qaadan kara dadka ardayda